سدرادد بمانتا يعني وحيابا وخطر السنة أنا أركو حكمدة تربية آتك وفوق بحية وحنا عرفت دعوته كرتون نظن يلا ينادو كرتون اسكوا تربية دي والله بدي بوانو هذا ليا وحنا ودنا براكتيكالي بوضع المهنية رأت بيرات كيسوقو بدنت حليت المامي قران مالني مو إن يرو مدل أرد يوم بعهم حد عقول واحد عن كرتون يروم بوي مكدعوده مديو كيتشاد انتو قالون بلما مديو الله سعر كوير ري ولا لين بيري يا مركع لما مديو نوسيده يعني هو وحاد وخطره ما دام عين كاتهي اي الى القران كاين بدن وحي نوغو تلماميا لقد جاءكم رسول ما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اما الى الرسول وحو اسو ديري inay noqdaan murabbiintii dhabtahay practically dadku uu arkayay bale waa waxa keenay in dadka loo sameeyo waxaanay ku tilmaamaan nujuumta maanta nujuumu cinema ama yani waxa maqashaanin badan stars kani xidigtu dawa baashan sare cirka ka muuqata xidig waa shay sare marka nafsiyan waxa dareemaysa xidigtu inay sareyso starska waxa dadkan looga dhigay in tusaale lagaaga dhigo marka qof la yaqaan ama caynkanaba wax ku caan baxaya dadku iskaga dayanayaan isagoo aan oran igu dayda maadaama uu star yahay najmigi mar haduu yahay wali maan maqal wacdi ku saabsiisan in dhafoorada la xirto miya aragteen meel laga hadlayo laakiin some of the stars ayaa intan xirtay dabeetana dadkii rawo arkay waa laga daba xirtay miya maqasheen meel lecture uu ka baxayo qofkiin arkay miyuu jira ka waramaya fawaid laga hela ama qaabay tarta ama waxay tarto in dhafoorada la xiro ama madaxa in far lagu qoro ama cid iskama wacdinin laakiin jas waxa loo helay maxay some of the stars xidigaa loo helay dadka agtooda lagu buunbuuniyo ku weynaa waxaynu u baahanay ilmiheena marka inaynu xidiga u sameeyno koow ah inaad ku xidho dadka saalixiinta anbiyadii saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam dadkii wan wanaagsanaa dad uu hiigsado oo taariikhdooda akhriyo oo ku daydo oo isku dayo sidoo starskaasi uu noqon lahayo kale in la helo walidalik nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoogu ahaa wax walba tusaalihii koowaad haday cibaadata ya falakuna abdan shakura haday tahay wax bixin ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط قال لا هديت هي الزهد اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هديت هي تواضع إنه توب كيسة شيء مردس يوحيس يعني في كل شيء هل أنا وحي نوبة هنا مركة قريو إنه بيأدي لوبة هنا دياريو odayga iyo islaantu inay u noqon karaan ilmahooda starskii ay ku dayan lahaayeen inay isku dayaan inay noqdaan day cibaadadtay haday wanaagtay daacin kartay systemka hadii laga arko waxa hubaala ilmuhu inuu in badan iskaga dayo in la isku dayo iskuulkii iyo meeshuu tagi lahaana inay star ka noqoto laakiin waa dhibta ugu badan waayo waxaan ku noolahay mujtamac aad inooga fog حينما فوقي مثلا مجتمع كان evolution يا relativism يا كوا كاني مركه هره نظريات ساينس صباي هاي لكن يمكن نظريات اجتماعيه ونظريات مجتمع ورميسيه waxa mujtamac laga dhaadhicay wax waliba inay mutagayiriin dabeetana tagayurku had iyo goor xaga ahsan ka inuu sii socdo wixii hore qadiimka ahaa inuu baaliyay marka old fashion inuu yahay wax laga baxay inuu yahay idan ilmuhu inuu adiga ka tatawuro oo fashion-ka cusub uu raaco waayo tatawurku ila laxsanun buu socdaa wax walibana waxay ka sii horeeyaan al-asr al-bidaayi bay sii noqonayaan meel gabowda lagu sii socdaa xaqan marka wuxuu sii socdaa idan adiga ayuu mujtamackani wuxuu sawirayay inaad old fashion-ki tahay madrasada fikradda taala marka waxa fikradda evolution-ka waa fikradda relativism wax xaq la yiraahdo baynaanu jirin relativism waa fikrad marka hore physics lagu dhigan jiray laakiin imika ma aha imika waa philosophy cilmi ijtimaac lagu dhigto oo ah bulshadu inaanay wax xaqiiqi jirin oo ah cid ka ra'yi saxsan inaanay jirin oo ah marka la waayo wax cadaalad iyo sax lagu kala baxo in fawti lagu kala baxo therefore la kitab wala sunna marjac ma jiro
سادرادين ما دام أنو مرجع شرين قفك وحي سينو ريسان قريون بو بهاي مويانا وما باهنا وحمان شرتا يواكن سادرادين بلشادين وحي كوسا ليسانتي وح ليدا هدو وحنية يواسان يمجران والريليتي فيسي محاس ilmihii aad xaggan ugu ahayd starka ama wanaagu hadii iskuulkii uu tagayay fikrada lagu hayaa ay kanta waa ilmo dhibay haysato fikrad aad uga fog wixii uu xaggan ku hayo dhan markay noqoto waayo nimankani waxay sheegtaan democracy laakiin waxaan rumaysanahay shakhsiyan inuu dictatorship ka adag yahay dictatoradii la yaqaanay waayo waan riisan garaynaya oo sababaynaya caalamka dictatorskii hore la yaqaanay curriculumkooda tarbiyad iyo waxooda waxay ku qasbi jireen inta u shaqaysa yani madaaris caama iyo afkaar caama iyo waxa dadka lagu wadaa ma jirin laakiin waxa lagu wadaa askartiisa iyo xaashiyadiisa iyo intan dawladda ilaalinaysa inta ka shaqaynaysa intaas baa qaab loo train gareeyay ama wax la barayay laakiin qolada tani intay dadka u fakareen oo aragti ay u rumeeyeen oo wasiiladii aragtida dadka looga dhaadhicin lahaa qaateen ay yiraahdeen waa xaq kamida xuquuqda bini'aadamka in wax la baro compulsory education baa jira waa compulsory lumina ma compulsory education ma aha Europe oo dhan ma awoodid si dawladdu wax wada ma inaad si kala wax u dhigtid waa curriculum inta dadka loo dhigay la rabo in lagu sheeb gareeyo mujtamaca kan soo ekaan lahaa waayo waxaan curriculumka la yiraahdo gabigiisuba marka la isku daro waa wasiilo ahdaaf hore oo la go'aamiyay loo adeegsado inay soo saaraan curriculumkani wuxuu soo saaraa maxay qof la xadeeyay sidoo eekaanayo dawladdu qolada wasaaraddeedu waxay ka fakarayeen maxaynu rabnaa inaynu soo saarno nin ingiriis ah oo caynka weeg oo saaweeg oo saaweeg oo saaweeg oo dhaqan kaale waa la gartay qofkii waa la xadeeyay su'aashu markaa waxa weeyaan maxaa soo saari kara qofkan wasiiladeeba qofkan soo saari karta وين وحال برا وين وحال تسا وين وحال لو شيغا وين وحال لو دغا therefore wixii oo syllabus wayna yimaadaan marka all this marka syllabus la dhigta cilmi qura maaha bal aktaru intiisan horta iskandariyada ka hooseysa cilmiba kuma jiro addaci ina cilmiba ku jirin qorqoraal iyo waxyaabo yar mooyaane laakiin waxa weeyaan waa qaabayn loogu tala galay in qofka loo qaabeeyo way falsafa tarbiya alhaditha waxay dhahdaan إنسان أيان صوصار إنه بيده قابل أن يتعلم شرط ما هو بيده إنسان متعلم بين الصوصار إنسان وحبران كران صوصارينه لكن إنسان وحبرتي ما هو بيده وتربية دي تقليدي جاها بيده بس صوصاري شرطي أديب يا عالم يو أنا وعلامة ما صوصارني إنسان بان صوصار ربيده بتعبير آخر علامة ما صوصار ربيده لكن واحد صوصار إنسان مركوا إنسان كيدونه ينبي صوصاره رنتينا علم نفس الحديث انت سي وناكسن لو دراسيي ايا سي وناكسن لوغا فائديي علمه وقت كستا وحو قادن كري لها سي وناكسن با لو دراسيي ولذلك بعد ما معروفه بكليه كلابرو odagii la oran jiray waa oday Switzerland u dhashay oo aragtiyaha tarbiyada casriga kan ugu waaweyn niman kale ah ayaa ma macruufa buu leeyahay wuxuu yiraahdaa dameeraan haraadanayn ma waraabin kartid buu yiri waa mahmaahdiisi marka waa asal bayda min usul tarbiya dameeraan haraadanayn ma waraabin kartid buu yiri yani waa inuu ku haraada si aad u waraabiso taa macnaheedu waxa weeyaan baydaadan ilmaha wayna daraasaysa wax walba marka uu u baahan yahay si aad u diyaar u lahaato aad u siisid marka aan u baahnayn bileen maanta dhan hadaad akhrido waa dameeraan haraadanayn waraabinaya tahay bileen ala asaas hada rajul يعني ilmuhu waqti aanu waxan qaadi karin ama aanu baran karin ama aanu diyaar u ahayn ama uu ka daalay hadaad isku dayday inaad ku hirgisto istiraado uu buuxsamaya dhaame haan maaha haantu ma markay marataba la iskaga shuba ee waxa weeyaan bay leeyihiin waa in loo dayaa waqtigu waxan qaadan karayay waqtiga baahida tani haysay markaas buu cabaya si fiican bay u daraasayeen ilmaha iyo aqoontiisa taasina waxay keentay inay si wanaagsan u cabsiin karaan waxay doonaan walidaalك ba ahad shu'araa almuslimiin ayaa gabay buu tirinaya uu leeyahay ceebi waxay raacday buu yiri fircoon kii tagay ayaa ceebi raacday buu yiri bal intuu dadka caruurta leeynay fircoon xukun buu soo ragay maxay ahaa
ilmo kastoo reer banu israa'iil ka dhasha in la dilo oo nin ah ragga haweenkana la reebo intuu ceebtaasoo dhan gelayay buu leeyahy bal muu kulliyada uunu fura buu leeyahy muxuu ka dilayay yani wuxuu ka dhigay kulliyaadkan iyo waxa kane qatlul insaan inay iyagu ku filan yihiin oo sidii doonayay inuu ka dhigi karayay markaa wuxuu leeyahay ceeb baa raacday fircawne waxa ka xarfaansan buu markaa leeyahay qoladatan hadda joogta idan waxaynu leenahay ilmaha kan dhib badan baa haysata sida daraaddeed waa inaynu inagu in badan bal dhankeena iskaga dayna in aad siin kartid tusaaluhu u baahnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa wada taqaaniin xadiid abi daawuud ee wada macruufka in gabadhi u yeedhay ilmo ay dhashay oo ay tidhi kaali hooyaa wax ku siiye oo nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad siinaysaa ay tidhi timir baan siinaya haddaana timir siin lahayn buu ku yidhi nebigu beenaalad baa lagu qori lahaa yacni wuxuu diidan yahay inay tusaale xun ugu noqoto mujarad inay ku sasabto kaalay waxbaan ku siinayaa wuxuu baahan yahay ilmuhu inuu guriga cadaaladda ka barto runta ka barto beentu inay xuntay ka barto waxaynu u diidaynoo dhan inuu gurigu tusaale ku ahaado idan waxaan leeyahay waxa u baahan in la tarbiyeeya ugu badani maaha ilmaha waxa ugu badan in la tarbiyeeya waa guryaheena odayga iyo islaantu intay tarbiye haystaan ayay ku xidhan tahay sidaa awgeed waxaynu u baahanay environment aada u cajiiba inaynu raadino alinsaanu ibnu bii'ati qofku bay yidhaahdaan bii'adiisu waxay tahay buu inta badan noqdaa meel gurigii iyo iskuulkii iyo shaaricii wax kala gedisan ay sheegayaan in qof wanaagsani ka soo baxaa arrin fudud maaha maadaama ay arrin fudud ahayn waxaynu leenahay waxaa u baahantihin haddaad rabtaan inaa ilmo tarbiyaysaan environment inaa abuurtaan waa qadiyo lagama maarmaana environmentka kaa guriga ha noqdo odagaiyo islaantan koraya ee caqliga badan ee hore u socda ee waxbaranaya ee ilmahooda ka roon waxaa u baahantihin masaajidda inaad samaysataan waa environment wax lagu barbaariyo waxaa u baahantihin iskuulladiina gaarkaa inaad samaysataan waxaa u baahantihin xaafadiina gaarka ah inaad degtaan xaafadiina gaarka ah inaad degtaan waxaa u baahantihin iclaamkiina gaarka ah inaad yeelataan idan waxaynu leenahay halkan inaynu joogno juhdina aynan bixin oo laga yaabo juhdigaynu bixinaa inuu kaba yar yahay kii aynu bixin jirnay markaynu soomaaliya joogno soomaaliya markaad joogteen ilmihiinna waxaa idin tarbiyeyn jiray mujtamaca guriga subaxii ninkuna uu ka shaqo tegi jiray islaantuna sariibaday qaban jirtay inankana dugsiga ama malcamadaa loo diri jiray macallinka qur-aanka ilmaha wuxuu soo sheegi jiray hadhowna masaajidka iyo meelahan buu iman jiray suuqa hadduu wax yaroo xun ka sameeyo dee iminka mala dhaqankiiba isbedela dhaqankii hore soomaaliyeed wuxuu ahaa odayga ugu dhowaa arkayaa inuu karbaasho inanka xumo suuqa ku dhex sameeya yacni mujtamac oo dhan baan ogolayn in xumaha kan la sameeyo mujtamac aragti wadale buu ahaa beentu inay xun tahay zinadu inay xun tahay ilaahay in laga gaaloobaa inay xun tahay salaad la-aantu inay xun tahay mujtamac buu ahaa markaasi ugu yaraan camalku waaba jireen dad aan tukanayn ama caynkani laakiin inay salaadu fiican tahay waa isku wada waafaqsanaayeen halkan waxa weeyaan waxaan xataa la isku waafaqsanay ninkii markuu guriga ka tagay iskuulka uu tago wixii musallamka ahaa musallamaadkii oo dhan waa laga masaxaya yacni badiihiyaadkii ashyaadii aada uga dhigtay inay tahay inuu sidaa ku qaato markuu tago guriga kuma qaadanayo markuu tago dugsiga kuma qaadanayo wax walba muran iyo niqaash baa la geliyay sidaa ogeed waxaynu u baahanay inaynu samayno bulsho ka dhex samayno bulshadaynu la noolnay waxaan hubaa haddii waa bilaal philips siduu sheegayo kale haddaynu bulsho samayno gaar u degan oo islaamnimadeedana muujisatay yani waxaynu rabnaa dad inaynu islaamnimo ku tarbiyayno haddana waxaynu rabnaa inaynu islaamnimadaba qarino markaad shaqada joogto waxa laga yaabaa salaada inaad qarsato sida ayuu sheefku ku ogaani markaad waxaan samaynaysaa waxaanu ma waxaad adba qarinaysaa cid ku tarbiyan karaysaa markaa غير معقول
waxay ahayd intaynu meel degno inaynu mujtamac samayno nadiif ah oo cibaadaysta oo aan tuugo lagu aqoon oo aan xan lagu aqoon oo isu gargaaraya oo suuqoodu nadiif yahay. hadday muslimiintu noqon lahaayeen muslim dhaba xayiga ay magaalada ka degaan wuxuu noqon lahaa xayiga dadka hantida le ay degaan. waayo qof kastoo bini aadami meel nadiif oo fiican oo nabadgelyo loo xashiishadi joogino caynkan qof kastoo bini aadamaa jecel. laakiin waxa weeyaan innagaa mustawihii islaamka ka hoosayna that's why aynu kuweeniina u tarbiyan kari weynay kuwa kalena aynu u keeni kari weynay. waxaan leenahay ilmaheennu wuxuu u baahan yahay bii'as aynugu samayn lahay ka bilaabanta guriga ku xigta mujtamaca uu ku xidhmayo asxaabta uu la noolaanayo. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa wada taqaaneen wuxuu ku tilmaamayaa jaliiska suuban ama ninka majliska fiican lala fadhiisto iyo saaxibka xumi wuxuu nebigu ku tilmaamay laba shay oo kala fog. mid wuxuu yidhi waa maxay? waa nin iibinaya miski. nin miski iibinaya, miskigu waa shay udgoon. nin miski iibinaya maxaa kaa soo gaadhaya? ima inaad ka iibsato wax wanaagsan uu keenay aad ka iibsatay, inuu ku siiyo shay fiican uu ku siiyey, inta aad la joogto inay meeshu udug iyo caraf fiican yeelato, inta aad la joogto unoo meel udgoon ay noqoto. wuxuu nebigu yidhi ka kalena wuxuu la mid yahay ka naafikhi kiir, nin buufimo forging nin samaynaya dabka halkan tumaalnimada lagu sameeyo. tumaalku si uu birta u tumo wuxuu u baahan yahay in birta la kulayliyo. birta si loo kulaylina waa in dab la helaa. dabka qaabka ugu fudud aynu adeegsan jirnayna maalin walbu ahaa in hawo lagu buufiyo dabka shiddo oo gubta. laakiin marka la buufiyo maxaa dhaca? waxaa dhaca dambaskii baa duulaya, dabkii iyo dhimbiilaa duubaya, birta iyo boysankii ka kacay iyo gaasiskii ka baxayaa duulaya. meeshoo dhammi qiiq iyo dambas iyo dhimbiil daba weeyaan. marka inuu marada kaa gubo iyo inaad urxun ka qaado mid un bay noqonaysaa. bilaahi calaykum su-aal baan idi weydiinaya markaa. qof qura hadduu nebigu ku tilmaamay lafadhigii, qof keliya lafadhigii haddii la yidhi waa ka naafikhu kiir, bal ka warran ninka la fadhiista 10 milyan oo 10 kuba afuufayaan. yacni qof qura oo weliba 10 kuba aanay afuuf qura ahayne mutafaniniin ay yihiin sida loo afuufo jaamacada looga soo saaray sida dadka loo waalo. kani tumaal miskiina buu ahayo buufimadiisu iska haystay, laakiin kani waa mutakhasis, jaamacad buu u galay siduu diinta kaaga saari lahaa. mutakhasis weeyaan. markaan leeyahay waa mutakhasis waa maxay? maalin baan waxaan soo raacay xaafad baan imi inan yaroo secondary ku jirta oo imtixaankii u diyaar garoobaysa. markaa buug bay haysaa. markaasaan ku yidhi buuggani waa maxay ii dhiib. waxay tidhi chapterkan waxaan ku leeyahay afnooshka Norwegian language ayaan berri leeyahay oral. markaa waxa laygu yidhi buuggan soo akhri. ii dhiib baan ku yidhi buugga la yidhi soo akhri. buugga knife super baa la yidhaahdaa. buugga waxa weeyaan nin diimaha ka baxay oo ku dawakhay oo dabeetana diin la-aan u socday oo waraaqa qoray oo philosopherskii joogay waktiga Albert Einstein iyo kuwa iyo fulan waraaqa u qoray oo ay u soo jawaabeen oo markaa waa wiil yaro xayraan ah dawakha. ilmaha waxaa la rabaa in lagu abuuro shaki la geliyo, laakiin diintaada ka shaki cidi kuma odhanin, islaamnimada ka baxna cidi kuma odhanin. laakiin waxaa la yidhi risaaladan soo akhri, waxaad ku leedahay imtixaan baad ku leedahay. inantu risaalada akhrinaysa dhammaanteed waa ilaahay sidaad uga gaaloobi lahayd oo aan toos lagu lahayn sidaad u gaaloobi lahayd suu u shakii lahaaya. waa risaalo dhammaanteed ku saabsiisan siduu u shakii lahaa. habeenkii anigoo ka yaaban ilmihii ayaan subaxnimadii tareen soo fuulay. inan kaloo Soomaaliyeed daba dhinacayga soo fadhiisto buug yar haysta waan ka qaado. waxaan ku yidhi maxaad adna leedahay? wuxuu yidhi imtixaankii ingiriisiga baan leeyahay. kow baan ku yidhi adna maxaa laga qaadaya? isna wuxuu sitaa risaalo kale waatuu ku gelayo imtixaankiisa ingiriisiga. waa maxay? born to be guy baa la yidhahdaa. isna risaaladu sito. inanta habeenkii waxaan weydiiyey yaa kuu macallimada baan ku yidhi. gabadh bay igu tidhi. waxaan ka gartay waxay adabkay u soo dirtay inay tahay macallimadaan waxba rumaysan. macallimadaadu miyay waxba rumaysantahay baan ku yidhi.
ma filaya bay igu tidhi saas baan iyadu inaanay waxba rumaysanayn waayo qofku aan waxba rumaysanayn dee falsafadiisu faafinaya isaguna ardaygii kale aan subaxnimadii arkay intaana la hadalo waxaan ku yidhi waxaan ku weydiiyo macallinkiinu ma homosexualku ka tirsan yahay waan u malaynayaa buu igu yidhi waayo born to be guy buu leeyahy dee soo akhriya waxaa ka qoraysaan idan iskuulka inagu tacliim baynu u diray carruurta iskuulka way ku maqantay syllabuskana kuma ad arag meel ay ku qoran tahay ilaahay ka gaalooba ama diinta ka baxa ama waxaan sameeya laakiin literatureka la siinayo iyo waxa uu ilmaha kane akhrinayo ayaa dhammaantood waxay wada yihiin wax maxay wax xagga kale u wado waxaad maantoo dhan aad ugu dhistay xaloo dhan ka waday xagga kale u wadaan idan waxa ugu wanaagsan baan leeyahay haddii ilmo tarbiyadii laga hadlayaba ama bulsho tarbiyadeed shayga ugu muhiimsani waxa weeyaan environment waa shayga ugu muhiimsan laga bilaabo environmentka guriga uu ku nooliyey aabbaha iyo hooyadu siday u dhaqmayaan lagu xigsiiyo carruurtooda yarasay iminka guriga haddii ilaahay inanka weyn kuu hagaajiyay ilmaha kuugu weyne hadduu hagaago waxay u badan tahay kuwa dambe inaad juhdi badan ku bixinin waayo tusaaley haystaan midhka koowaad hadduu kugu rabshad bato xeradaa waa cirka way adagtay kuwa dambe inaad ka adkaato waayo qudwadii guriga joogay ee yaraaye ay ku dayanayeen hadduu fiicnaado waxay u badan tahay inay dariiqiisii mari doonaan kuwa kalena inta badan laakiin hadduu ka hore kugu adkaado way adagtay environmentku markaa wax fudud maaha waxaan leenahay haddaynu rabno tarbiyo fiican waa inaynu samaynaa environment ka kooban guri ku xiga madraso iyo iskuol aan born to be guy laga soo siinaynin ilmaha marka ilmahaaga looga dhaadhiciyo inay biologically tahayba qofkan inuu cayn ka noqdo wax xunba inaanay wuxuu ahayn ee wax biological inuu yahay inuu caynkan u dhaqmaa waa wax aad u adag inaad adna marka xaqiiqo kala sheegto walidaalika waxaan idin leeyahay jaliiskan uu nebigu ka tilmaamay ninkan dabka shidayay nin quru ahaaye war kuwa kani waa ummad dhammaanteed naar afuufaysa ummad dhammaanteed naar afuufaysa dee gaal maxaa naar ahayna uu sheegaa waxaan leenahay marka ha ku eegin yani inta calculaska uu ka shaqaynaya ama inta caynkan iyo kuula muuqanin cilmigu waa tarbiyada uu qofku helo cilmigu waa in qofka la baro inuu wax baran karo idan hadduu tarbiyo fiican qofku helo equipmentka ah in la baro qaabka wax loo barto waa wax fudud isagoo weyn iyo isagoo yarba wuu baran karaa waxaan leenahay markaa shayga koowaad xadiidkii imaamu tirmidi imaam albani uu ku tilmaamay xasanu ligayri inkastoo culimo kale ay ka hadasho in sha allah waa xasan ligayri almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil buu nabigu la alayh salaatu wasalaam qofku wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ku jiro ee qofkiin ha eega buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam cidduu la saaxiibayo cumuum almar'i haddii caynkaa la yidhi famaa baaluka bilatfaal carruurta maxaad u malaynaysaa markaa waxaan leenahay albaladu ayibu yakruju nabatuhu biidni rabbih waladii khabut laa yakruju ilaa nakida horuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka fiicani si wanaagsan buu u baxaa dhirtiisu meesha xunse nakid waxaan hayni kama baxaan qaadh waxaan ahayn environmentku hadduu liito waa dhibaato yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylata laytanii lam attakhid fulanan khaliila yani nusuus qur'aan oo badan iyo axaadiis badan baan akhrii kari lahayn laakiin waxaan jeclay inaanan idinku badin ee inaan soo koobo waxaan leenahay wasaaishu aad bay u tiro badan yihin la adeegsan karo laakiin waxaan iska jeclay inaan hadalka soo koobo aan ku soo koobo in balaa maanta qaban kartaan wailaa masaladan waxaan idin leeyahay mu'tamar iyo 2 iyo 3 ba u qabta in lagaga hadlo waxaan ku soo koobayaan leeyahay tarbiyadu waa fanni u baahan inaynu si wanaagsan u daraasayno aan weliba talabixintaa idin siinayo aan idin leeyahay war projectiskiina ku dara guryaha inaan guri la samaynin kuwii horena wixii loogu tabaruci karo loogu tabaruco ilaa iyo in la baro qofka sida loo tarbiyeeyo ma aha qofka sida loo quudiyo loogu maydho waxaan ka warramaya tarbiyada qayb ka mida waynu naqaanaa
oo naturalska oo ilaahay dadku abuuray hooyadu ilmaheeda inay u naxariis badnaato inay naaska nuujiso inay nadiifiso in dhar wanaagsan loo xidho inta taa maaha ee waxaan rabaa intaynu rabnay inuu inaga dhaxlo sidaynu u dhaxal siin lahayn inay noqoto aqoon aynu baranay aynu tabiqi karno guriguna inuu isagu xilka isa saaro waayo maanta ma haysatid iclaam iyo madraso ku taageeraya shayga labaad aan guriga ku daraya waxa weeyaan aan arrinkayga oo dhan ku ururinaya maanta wasaa'il oo dhan waxaan ku ilaabayaa mid qura bii'a fiican sameeya bii'a fiican saa u samayn lahaydeen falowgeed gala hadday noqoto masaajid waa masaajidku waa bii'adii wanaagsaneed oo qofka muslimka ku xidhmi lahaa hadday noqoto degaan hadday noqoto schooling systems dadka muslimiinta ay samaystaan waxaan idin leeyahay war hantidiina geliya carruurtiina ha ka fekerin adigu bergaad dhimato muxuu cuni doonaa wixii alla u qoray buu cuni doonaaye adigu waxaad haysato waxaad isku daydaa qof nool oo shaqaysan karo xoogsan karo akhriya adduunba waxaan fici kara inaad kaga soo saarto iskuulku 100 gini 200 gini geli maaha wax weyn haddaad insaan saalixa helayso waxaanaad ogsoonataa inay tahayba mannada qudhe ay sheegato waalidku mannada uu sheegta ilmuhu wayada waqul rabbi ighfir rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira lama odhanin sida ii soo qadaysiyaan ama sida ii soo dhargiyaan ama waxa la yidhi sida ii soo rabeeya ilaahu u naxariiso ama dembigooda dhaaf waa mannada kaliya lagu hayo waxaan leenahay wuxuu hadhow cuno hanti inaad ka tagto waxa ka roon hanti intaad gelisay inaad ku islaaxiso haba iska gaajooda hadhow uu ku soo duceeyo waladun saalihun yad'u lahu giinu ku noqdo waayo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku markuu dhinto acmaashiisa kaloo dhammi way go'daa waxa gaadhay ee qura waxaa ka mid a maxay ilmo wanaagsan oo u soo duceeya waxaynu u baahanay marka environmentka ama bii'ada ama deegaanka sida u abuuri lahaydeen ama wasaa'ish ha noqoto asxaab wanaagsan aad u samayso ha noqoto naxariis badan oo uu kaa arko ha noqoto المثل لا على يو هلو هالنقطة باب الترغيب والترهيب واستعماشه وحنا جعلي سيسيد ومركو واحد وناكسن سمايو لو أبا القدو مركو واحد حن سمايو لو قدقو هالنقطة حتى حد العقاب عقابته أولون ما هي وحبضا وكسوكيو عقابة جرا وشو مركي لقى مار موايون بلقاري كرا وصائل هذا ترى بدن وقفك واديكسن كراتشرا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إن بدن أي كتل مامس لقنا يابينا هشان محاضرات بدن لقدوا بي المها عرورتا يتربية دو مسائل كلا هاد ليو وحن جعل يوننا سوكوبو وانكو سوكوبو علمه وخير قباه أنو سكفي عين وحو باهن يساقو نيدسكي ساسينة سيداوكو في عنو فلسو كبابيلتسكيسي awoodiisana inta daraasayso inaad soo burqin karto oo soo saari karto waxa soo saaray ugu badanina waa bulsho way ilmu waa laban kamida guriguna uu ka tirsayay mujtamac that's why aynu leenahay inaad hijrootaa waxa inta badan looga hadlaya waxa weeyaan degaan naareed inaad degto waxa ka fiican maxay degaan islaameed inaad degto waayo maadaama dadkan naafiqo kiirayiin oo dad naar afuufaya yihiin ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam bi'ada inaynu ka fogaano awgeed buu wuxuu yidhi dabkiinu yuu isu bixi waxaan filayaa berri inay ku jirto muxaadaro ku saabsan noocaasi dabkiinu yuu isu bixin macnaheedu waxa weeyaan laba environment oo kala nooca ku noolaada mar haddii lagu yidhi dabkiinu yuu isu bidhaamin waxa weeyaan laba environment oo kala nooca ku noolaada haddaa guuri weynay oo tegi weynay xaggaynu ka nimiyo carrigii islaamiga ahaa halkan haddaba environment ku sameeya at least ugu yaraan laakiin xaq heli maysaan inaad tidhaahdo halkii shilin badan iyo halkii shaqo badan baan u guuraya waar halka jamacu ka dhow yahay u guur oo halka islaamka iyo dugsiga islaamiga ku yaallo u guur oo ha noqdo humuumkaagu nebi maxamed muxuu ka ducaysanayay
xadiidku imaamu tirmidi warinayey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa walaa tajcal iddunya akbara hammina walaa mablaga cilmina yani mujtamacii muslimka ah humuumtoodii humuum adduunyuun bay noqotay wuu fekeraya 24 saacadood waxaad ka fekertaa hadday noqoto shilin badan si in loo heli lahaa caqligaagoo dhamme hadduu qaato waa aad bay u dhib badantay caqliga bini aadamkiina waxa lagu mashquuliyunbuu inta badan ka midha dhaliya haddaad maanta kutub akhrido diin wadoo caynkanoo waxaan ku mashquusho iyadaad u fekeraysaa si aad u horumarin lahayd haddaad dhaqaalo ku mashquusho isagaad u fekeraysaa waayo bini aadamka ilaahay baa wuxuu leeyahy maxay maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi laba ma jirto waxaad ku muraaqooto salaada markaad ku jirtana iyadun baad ka fekertaa walidalik waa xadiidkii imaamu albukhaari muxuu u baabaystay cumar bin khataab markuu warramayay inuu jeesh tajhiishiyo isagoo maxay salaada tukanaya yacni dadkii ilaahay ka baqayay salaada hadduu ka mashquulana waxa uu ku mashquulaya wuxuu noqday maxay ciidan siduu u diyaarin lahaa laakiin adigu salaada markaad ka mashquushana waa xafiisyabel maa tegin ama qolada maanta lacagtii kamaad soo qaadan wayaan waxaad ku mashquushaa waayo akbar ilhami markuu adduun noqdo dadkan akbarulhami markuu aakhiradooda noqday xataa cibaadaadkoodii ilaahay wuxuu tusaa fure uga dhigay inay ku riyoodaan aadaanku soo riyo saxaabi ma ahayn adiga laakiin xataa riyadaaduna waxaa laga yaaba inay noqoto halkii kale la iska dhiibaa markay dee taasina mashquuliso markaad in badan maskaxdu aad dhan walba ka tuujisay ee ay isugu tagtay uun xaggee hanti badan ikhwatii fillah markaa waxaan uga jeedaa shaqadu xataa hadday ka yar tahay ha iska shaqo yaraato haddii ay ka yar tahay dakhliga kusoo galaya iska dakhli yaraato laakiin hadduu environmentku ka saalixsan yahay ka aad markaa joogto hadda kama warramayo caalamulislaamiya qura waxaan ka warramayaa fii daakhili london waa inaad su qiimaysaa east london iyo north london iyo westka inaad degto kee fiican waa inaad ku sababaysaa kow ilmaha keebaa diin iyo dhaqan iyo akhlaaqn u fiican adiga keebaad 5 salaadood iyo masaajidka iyo cibaadadii ka gaadhaysaa second to that shaqada ha timaado laakiin arrinkeenu inta badan waa cagsiga halkii shaqo laga helaa un baynu u guurnaa iyadu waa wax fudud haddaad noortka ka hesho berri noortka gurina waa laga soo helaya mar haddii shaqadii jirto haddaad lister ka soo heshana listerna waa laga helaya idan waxaan idin leeyahay war environment inaad samaysataan waa shayga koowaad ee wax ku tarbiyan karaysaan waxaan jeclay inaan iska soo koobo in badan baa fadhidan muxaadaro kalena waa idiin hadhay wallahu aclamu billahi tawfiiq walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday muxaadaradii cinwaankeedu ahaa tarbiyada carruurta allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh